walaalayaal halkan waxaad ku arkaysaan kutub ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ee Ogaadeniya oo ku tababaran tababar aad iyo aad u qaalisan. kutubkan aad arkaysaan iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxay ku tababaran yihiin tababarka ugu fiican ee militariga uu yaqaano iyo ka guruulaha labadaba. sidaa darteed naftaduurayaashu waxay cadowga bideen dhibaato aad iyo aad u fara badan. bartilmaameedkooda iyo taargeedkoodana waxaa weeye goobaha cadowga uu degan yahay. naftaduurayaal waxaynu ku jiraa de inagu hawl adag baynu ku jirtaa. hawshan adagaynu ku jiraay waa waajib fardul cayna oo ruux kasta oo wadankeena maanta jooga ama see u dhashay waajib fardul cayn abay ku tahay inaynu sidan yeelo oo aynu cadowga iyo gumaysiga inaynu iska dulqaadno. nabiga alayhi salaam muxuu yidhi man qutila duuna maali fahuwa shii. xoolahaaga hadduu xataa muslim kugu qabsado kugu soo weeraro waa inaad ficil. kana wuxuu ka yimi meel aan wadanka lahayn buu ka yimi wuu inagu soo duuray wuxuu halkan u yimi nafteena iyo maalkeena iyo diinteena intaas u yimi. maalinta qiyaamadana wixii qarsoonaa iyo wixii muuqdayba ilaah waxba ka qarsoon baa la xisaabin doona. kuwa maanta inala dhashay naf iyo maal aan waxba inoo dhaafay iyagoo u hiilinaya axmaaradii waagaad u weydeenayno amba bixin iyagoo u hiilinaya u gargaaraya. horta arrintaas waa laga xisaabin doonaa. waana caadada iyo wadada uu gumaysigu maro wey. waa sunno hore gumaysiga oo dhan sunnihiisu kaa wey wadada u maraa taas. waa maanaa yacni waxaa la yidhaha dagaal sokay marra waa qababax baa la yidhaha soomaalida marra waa qoomamo. dagaalka nafti huruhuna dhiigga nafti huruhu wuxuu qorayaa nabad, wuxuu qorayaa midnimo, wuxuu qorayaa horumar. koodu wuxuu qorayaa kuwa la socda Ethiopia u hiilinaya wuxuu qorayaa sino, wuxuu qorayaa khamro, wuxuu qorayaa istil, wuxuu qorayaa dadka oo bilaash lagu laayo, wuxuu qorayaa tuugo harana lagu soo qorayaa heeri. waa cilmi hor leh heeri weligeena horumaynana. marka dee muddo dheer bay iyagu saa ku soo jireen. waa intii ugu dambeysay heeriyadii baa la cunay sinadan maqli jirin. heeriyadii baa cunay marka u dhamaatay eega marka dee qataradi baa u dhaay markaasaa dee sare qataradi u qabanaya hadii layihi boqolaal qataro iyo inoo qabteen kumayaal qatara inoo qabteen. iyo dambaysa 15 bay ahayd bil sanado 3 bilood 9 habeen wax saasa 4 bilood 6 bilood waxaas inoo qaban jiray. inoo waxaan hadda u qabanay hadii ilaahay yidhaahdo oonu qabanaynaa xoolaha nicmooleyda geela iyo ariga iyo loda. ariga ugu sii yar inta arigu sido inta leeg baan u qabanaya hadii ilaahay yidhaahdo. ilaahayna wuu maqlaa idinkuna maqlaa gaaladuna ha maqashiyo munaafiqiintu intaa wixii ka dambeeyana waa la xisaabtamaya hadii ilaahay yidhaahdo. iyagu sheekahayaan war kale inaguna warkaasaan mahayna teena ina run noqon doonta. teen ilaahay la jira wal caaqibatu litaqwa ilaahay yiri inagu ilaahay inala jira teena run noqon doonta inaga geli doona cirta wanaagsan inaga askala hadii nasriga ilaahayna waa loo dhuliyay insha Allah ta'ala hadii ilaahay yiraahdo. naftaduurayaal waan salaamaya go'aankeenu kaa weey niwaytul qasri ilaa dagaal ilaa xornimo. niwaytul qasri inagu waxaan xidhanay geeri ilaa xornimo. wax kaloo intaa ka sokeeyaa ma jiro meel kaloo lagu nagaayaa ma jiro. idan ilaahay saasay noqon doontaa hadii ilaahay yiraahdo. intii shiidana wada xaqay ku shiiday waxaan la soconaa waa qadarka ilaahay. anu hadda maanta inaan idinla hadlo maana diyaar garoobin. inaan intaa idin sheego ma jiro inaan axmaarada qatara u qabtay Ethiopia gumaysiga inaan qatara u qabtay intaa ma rabaan idin sheego. intaasna oo kaas idin ku maqlaa ilaahay. السلام عليكم.
daawadayaal waxaad arkaysaan cutubkii ka tirsanaa ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo iyagu u dhaqaaqay hayaankii iyo shaqadoodii gaarka ahaa. cutubkan ayaa wuxuu gudanayaa howlgalladiisii caadiga ahaa, waxa uuna taargetsanayaa goobaha iyo fadhiisimada uu cadowgu ku leeyahay gudaha waddanka ogaadeynaya.